boggi Twitter-ka ee wariyaha caanka ah ee reer UK Piers Morgan ayaa la jabsaday iyadoo lagu faafiyay sawirro ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Cabdiraxmaan Dabacasar oo ka mid ah dadka caanka ka ah baraha bulshada iyo sidoo kale qariirada Soomaaliya. warbaahinta kala duwan ee dalka Ingiriiska ayaa maanta si weyn u hadalhaya sawirka Dabacasar oo ah nin si weyn looga yaqaan Soomaaliya iyo guud ahaan qurbaha. qoraal la soo dhigay Twitter-ka wariyaha la jabsaday ayaa lagu qoray fadlan aqoonso sharafta dhuleed ee Soomaaliya. intaas kadib waxaa la soo dhigay sawirro muujinaya shanta Soomaaliyeed taasi oo dadka qaar ay u maleeyeen in qof Soomaali ah uu ka dambeeyo maadaama qoraalkan meesha ku qoran uu ka turjumayo qadiyada dadka iyo dhulka Soomaaliyeed ama wadaniyada Soomaalinimo. wariyahan caanka ah ee u dhashay boqortooyada Ingiriiska ee Piers Morgan ayaa si weyn loogu xasuustaa waraysigii caan baxay ee dhawaan uu la yeeshay ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo kaasi oo ka tagay kooxdiisa Manchester United kadib dhaleecayn badan oo uu kala kulmay waraysigaasi. dadka ku xiran Twitter-ka wariyaha la jabsaday oo gaaraya 8 milyan oo qof ayaa markii hore la yaabay page-kan oo ay ku ogaayeen warar ayna ku arkeen warar la xiriira qadiyada Soomaaliya. wargeysyada Ingiriiska ayaa sidoo kale qoraya qofka wax jabsaday inuu dhowr jeer bedelay magaca wariyaha ugu qornaa Twitter-ka kaas oo magacyo kala duwan loo bixiyay. dadka la isku dayay in la jabsado Twitter-kooda wariyahan kaliya ma aha ee waxaa jiray oo la isku dayay in la jabsado dad kale oo caan ah oo uu ku jiro ra'iisul wasaarihii hore Britain Boris Johnson taasi oo keentay in saacado uu khalkhal galo page-ka ra'iisul wasaarihii hore ee UK. ma jirto caddeyn sheegaysa in Dabacasar uu jabsaday akoonka Twitter-ka ee wariyahan caanka ah ee dalka Ingiriiska, laakiin waxaa aad loo hadalhayaa koox burcad ah oo lagu magacaabo Jacqueline Xwad kuwaas oo 2019 ku caan baxay jabshashada akoonno badan oo Twitter ah oo ay ku jiraan kuwa dad caan ah oo dunida ah ay leeyihiin. tan iyo markii warbaahinta Ingiriisku ay qaateen sawirada Dabacasar, dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ka falceliyay iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlay sawirada dadka Soomaaliyeed ee la soo geliyay Twitter-ka la jabsaday ee wariyaha. kuwa kale ayaa fasiraada u bixinaya oo sheegaya in ay arrintan ka dambeeyaan dad taageersan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama sawiradii ugu horeeyay ee la soo geliyay uu ku jiray sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inkastoo lagu soo qoray xog la xiriirta sportska ama ciyaaraha, haddana waxay dad badan isweydiinayaan in arrintani ay ka dambeeyaan dad taageersan isaga ama kooxdiisii dhawaan looga guuleystay doorashadii Soomaaliya. dad badan ayaa iyaguna si kale oo madadaala uga falcelinaya baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ka oo ay fariimo kala duwan ugu qorayeen Dabacasar oo ay sheegeen in ugu dambeyn ay u suurta gashay inuu jabsado ciwaan ay ku xiran tahay 8 milyan kaas oo uu leeyahay qof ajnabi ah. Dabacasar oo guud ahaan dalka Ingiriiska maanta si weyn looga hadalhayo kadib marka uu jabsaday boggan weyn sida ay iyagu ku eedeynayaan ayaa dhawaanahan safar uu ku jooga gobolada dhexe soo gabagabeeyay isaga oo dib ugu laabtay dalka Mareykanka oo uu markii hore ka yimid. haddaba maxay kula tahay adiga saameynta leeg ayayse ku yeelan kartaa arrintaasi Dabacasar?